nimayo 24 sano oo Puntland si kale iyo gacmo dadban lagu maamulayay 66 waa cunayseen maanta goorta anagu cod yeelanay oo aanu sinay codkiina ku cilbaxaysaan oo ninka rabtaan dooranaysaan in anaga qori isla ay hortaagtaan de waxaan anagu aqbali karno dadka mucaaradkan waxaan leeyahay waraad anaga xukuumaddu wax gooni ah hayso ma laha idinka badan dooranaynaay soo sharaxa waa kaas insha Allah kulli waxaan rajaynaynaa inaan nabad qaadataan wallaahi oo idin dhaartay daa soo sharaxan waa ana idin ku shubaya yalahaas dadka khalkhalka iyo amaanka waxa wax u dhimayay inay joojiyaan oo maslaxada ummadda iyo dalka bay eegaan annaga waxaan noo ah nabadgelyo horumar in dadku codeeyaan ra'yigooda la arko nimankaan waxaan leedahay siyaasiyiinta ay doorashada ka soo horjeeda war in badan baa dadku deeyo afduubnaaye shacabka fasaxa oo ka daaya cunaqabataynta ka daaya intaa ka badan shacabku ma dul qaadan karaan magacaygu waa Jacdoog waan soo dhaweynayaa TV-ga iyo howlwadeennada aad baan u soo dhaweynayaa sababtay maanta waa maalin loo baahnaa anagu raggii waxaan nahay juhdi iyo dagaalka geliyay doorashooyinka inay dhacaan qof iyo cod Puntland marnana gorgortan kama gelayno inaanu haddii insha Allah inaan doorasho dhicin sababtoo tahay waddanka waxa lagu jooga waa doorasho inay doorasho dhacdo juhdi badan baa baxay dadaal badan baa baxay maanta waan la dareenay iyo inaanu qof codkayga ku cilbaxno marka in wixii la aftuubahoodii si kale wax loo arkaa anagu ma aaminsanin mana aqbalayno mid kalena gorgortan ka gelmayno oo annaga in caasimadda ama habeen xabad ka dhacdo ama maalin xabad ka dhacdo iyadana gorgortan ka gelmayno marka waxaan leenahay waa maamaha yani marka saaxiibada iyo arinkan ka soo jeeda dhuwaaba waxa la yiri dhuwaayo bal waran hooyada ka waran wuxuu yiri hooyaday markay caanaha leedahayna waa jaqa goortay gabowdana waa cuna nimayo 24 sano oo Puntland si kale iyo gacmo dadban lagu maamulayay 66 waa cunayseen maanta goorta anagu cod yeelanay oo aanu sinay codkiina ku cilbaxaysaan oo ninka rabtaan dooranaysaan in anaga qori isla ay hortaagtaan de waxaan anagu aqbali karno marnaba ma aqbalayno in caasimadda de si kale loo rogo wajka loo yeelana ni anagu aqbali mayno xaaladdu ninkii tartamaya ha tartamo si kale u tartami ka dhaan si kale wax u baalkaysan ka dhaan laakiin de isbaaraan dhiganayna anagu 24 sano ka dib isbaaro waa diinay Puntland ma aqbalayso shacabka reer Puntland waa ka caaya hadaynan u hoggaansan awaamirta iyo amarka dawladda iyo amarka ismada iyo turjumaadda shacabka meel bay u socdaan waxa weeye inaan nabadgeliyo la ilaaliyo in doorashada la ilaaliyo in ay ku dhacdo waqtigeeda wixii dhaamashayo na gaaray anagu waa ka xunnahay waxaan codsanaynaa in waxyaalaha laga waantoobo bulshadu maalintii cod yeelato oo insha Allah ay codkeeda yeelato ay rabninkii rabta ku doorato hadii la yiraahdo la yeeli maayo macnaha wax la aqbali karo maaha marka waxaan leeyahay arinkaas ha laga waantoobo wax la aqbali karo maaha idinkuna siyaalo kale wuxuu raadiyay mideeda kale hadda maanta idin hirgasho taa doorasho waa joojinayna oo bariya wax ka soo doonaysan shacabku wax meel ka soo leeyahay mase waa wax la iska jaqo tuubo la iskaga baray waxaan leeyahay idinkuna hay siyaasad tirinin oo maanta wadanka hadafkiisa dhaafinina annagana de anagu ciyaarinina wadanka de samcadiisa iyo nidaamkiisana wax u dhimanina ogaada hadii meel kale oo si hadda la sheegayo gacmo jidana shacabka reer Puntland iyo madaxweynaha Suudaan waxa ay sheegayaan waxa ma dhici doonto mana aqbali doono haddaan de talaabo sharci iyo idinkuna ka noqosho iyo raali gelin bixin wixii xalay dhacay iyo gacmo lagu sameeyay sanduuqyada iyo hawsha tiibo wadana haddaydan idinkuna raali gelin ka bixin maantana aydan go'aan ka soo saarin de shacabku isaga hadlaya dareenkiisa isaga cilnay wana maqli doonto assalaamu alaykum wa salaamaya Puntland TV aad iyo aad baa mahadsantihiin shaqada qaran ee ummadda u haysa reer Puntland
dhinac kasta ka shaqeynaysa aad baa mahadsantihiin tan guud marka ka imaado waxa weeye arrimahan doorashooyinka run ahaantii waa soo dhaweynaya waa arrin aad u fiican weeye sababtoo ah barnaamijkan dimuqraadiyadda ah oo doorashooyinka iyo dowladaha hoose sababtoo ah dimuqraadiyaddu waa arrin fiican arrintana wax kasta wax fiican markii mucaarid yimaado ama isqabsi yimaado in wada fadhi iyo wada hadal iyo fadhi lagu dhameeyo waa wanaagsan laakiin caasimadan in dhibaato ama hawl looga yimaado wax quman maaha ma wanaagsana mana fiican waa laga fiican yahay waxa la rabaa waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin waa in fadhi iyo si wanaagsan iyo dimuqraadiyad soo dhisnay iyo Puntland sharafteedii iyo sida uu soo hangalnay xanigamad badan la soo sameeyo oo si fiican loo soo waa in arrintaas siyaasiyiintu nin kasta xil buu raadinaya wuuna helayaa wuuna waayayaa insha Allah taala laakiin waxa la rabaa in loo shaqeeyo walaatinimada iyo Puntlandnimada iyo dawladnimada dimuqraadiyadda la soo dhaweeyo aad iyo aad baa mahadsantiin doorashada waa soo dhaweynaa waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo wixii la sugayay waa hawl wacan oo ay dawladdu qabatay oo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno haddaanu nahay shacabka reer Puntland gaar ahaan caasimadda magaalada Garowe waxaan leenahay shacabka aniga maxamed ahaan waxaan leeyahay shacabka reer Puntland doorashada hal la qabto hal loo diyaar garoobo danteena ku jirta aan ka gudubno bahal ay koox gaar jeebka ku wadato oo aan u gudubno codkeena oo hal qof iyo hal cod si inagu aan awood ugu yeelano inaan madaxweynaha dooranno xildhibaanada dooranno waxaana aad uga xumahay imika colaadaha iyo xaaladaha doorasho soo jeedka laga wado magaalada Garowe iyo deegaanada hoos yimaada aad nimankaan waxaan leenahay siyaasiyiinta ay doorasho ka soo jeeda wal in badan baa dadku deegaanka afduubnaa shacabka fasaxa oo ka daaya cunaqabataynta ka daaya inta ka badan shacabku ma dul qaadan karaan dawladana waa aad baan u soo dhaweynaa aad baan ugu taageersanahay barnaamijka doorashada quruxda badan ay keentay waana guul iyo amaan runta ay leedahay dawladdu ay leedahay iyo xisbiga imika taada haya dadka mucaaradkan waxaan leeyahay waraad anaga xukuumaddu wax gooni ah hayso malaha idinka badan dooranaynaay soo sharaxa waa kaas insha Allah kulli waxaan rajaynaynaa inaan nabad qaadataan wallaahi oo idin dhaartay daa soo sharaxan waa ana idin ku shubaya shacabku dhan way in taageersan yahay haliyeeyaatiin hore u socda kaliya haddii xataa wax aad tabanaysaan ugu samra inay noqoto Puntland inay dimuqraadiyad noqoto oo qof walba codkiisa uu ku elbo intaas inaga badan anaga dhan dacdada xalka dhacday caasimadda Garowe caasimadda Puntland ee Garowe wax dhibaato meel 37 degmada doorashada ka dhacaysa marka meel yar oo wax ka dhaceen lama oran karo waa barabalan laakiin hadii dhalinyaro si xoogaa wax yar macnaheedu tabatay waa dhici ka dhacayna qalalaad sameeyo yar wax barabalan mal إن شاء الله ويسكه جاي. فكرت والله هقول كنت عقبت ده وقتها هقول كنت عقبت ده وقتها لما أراك واحدة وحول بحضارة بيلين حضارة ده كم بتاع واحدة بعد تامر. كله هاي بوتلاند تي في. وحنا مهد علينا يا صحفيين تان برنامج كان تدوينه رأي يقول وأنا سان كنت واحد ونكسن يا بوتلاند كالصعدة أو ومد واحد بدنا يسوقها سي وأنا كفر أحسن هاي إن دور الشر لقبته dadku ay waxa weeyaan codeeyaan ay raadiyaan waxa weey mustaqbalkooda waxa weeyaan ay ka hadlaan marka doorashada Puntland aad bay muhiim noogu tahay waana wax aad ugu wanaagsan dadka iyo dalkaba dad yow badan baa jira waxa weeyaan dhaliilsan laakiin dhaliishaas wax badan baa dhaliil ugu jiray oo wax la dhaliilahayay dhaliisha waxa weey in laga gudbo in horumar loo gudbo in dadku codkooda waxa weey ay dhiibtaan in la muujiyo waxa weeyaan kalsooni oo dadka waxa weeyaan raadinaya inay u tartamaan Puntland ama xilal ka raadinaya waxa u wanaagsan inay waxa weeyaan si wanaagsan wax u raadiyaan oo ay khalqan iyo nabadgelyada wax u dhimin annagu haddaan shacabka nahay doorashadan faa'iido badan baa noogu jida sida la cadeeyay waxa weeye hadda waxa la qabanayaa doorashooyinkii golaha deegaanka oo ka soo horeysa doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha marka dadku markay doorashadan ka gudbaan taa baarlamaanka loo gudbiyaa وانا مهم وحويا سida ay wax u socdaan hadeertan la tixgeliyo arintaas sida nagu maqaalka anagu xogogaal manhin laakiin wararkaas waa maqalay hadii ay jirto waxa fiicnaan lahayd inay waxa weeye waxyaalahaas dadka khalkhalka iyo amaanka waxa wax u dhimay inay joojiyaan oo maslaxadda ummadda iyo dalka bay eegaan annaga waxaan noo ah nabadgeliyo horumar
in dadku codeeyaan ra'yigooda la arko marka waa laga heshiiyaa la yiri wax laga heshiiyay in waxa weeye dib masna waxa weeyaan khalqal loo geliyo oo dadkii waxa weeyaan la tuso wax amaan darre iyo waxa weeye dhibaato waxa weeyaan dadkan kama bixi karaan awal bay waxa weeyaan la daala dhacayeen baahiyo badan oo haysay sida waxa weeyaan dadka waxa ku adkaan noloshii oo waxa weeyaan iska adag marka waxa la rabaa waxa weeyaan in siyaasiyiinta ay naga daayaan carqaladda iyo waxa weeyaan dalka waxa weeyaan mushkiladaha laga abuurayo annaga shacab haddaan nahay waxa horumarku noogu jira waxa weeyaan doorasho xalaal ah waxa weeyaan ciddii rabto ama xisbiga danaynaysan dadku waxa weeyaan ay codeeyaan oo ay muujiyaan waxa weeyaan dareenkooda oo barwaaqo aan u gudubno oo loo gudbo waxa weeyaan dadkan waxa weeyaan odayaasha kaliya waxa weeyaan ra'yiga ku kooban iyo codkan marka saasaan jecelahay insha Allah taas rajeen